golaha midowga imaamiyada masaajidada dalka Mareykanka ayaa gargaar raashin soo gaarsiiyay dadka ay abaartu sida ba'an u saameysay ee ku dhaqan deegaanada galbeedka gobolka Sanaag waxaana uu soo wakiisheen qaybinta raashinkaasi hay'adda Humanitarian African Relief Organization oo loo soo gaabiyo haro xafiiskeeda Somaliland Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo ay ku wareejisay raashinka gargaarka hay'adda haro ayaa gaarsiiyay raashinkaasi deegaanada Dhurcilaan Gudmahadle iyo Kalyaqac oo ku yaala bariga iyo koonfurta degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag raashinkan ayaa loo qoondeeyay 320 qoys oo ka cayroobay xoolihii ay dhaqan jireen ee ay ku tiirsanayd noloshoodu gargaarkan ayaa ka koobnaa dhammaan noocyada raashinka Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo kamid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Somaliland kana soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa kula hadlay TV-ga Universal goobaha lagu qaybinayay deeqda raashinka sidoo kale dadka loo qaybiyay raashinka gargaarka ee ku sugnaa deegaanada Dhurcilaan Gudmahadle iyo Kalyaqac ee gobolka Sanaag ayaa ka mahad celiyay gargaarka la gaarsiiyay waxaanu joognaa magaalada ama tuulada Dhurcilaan oo aanu halkan maanta ku qaybinayno raashin dad muxsiniin ay soo direen walaalahooda abaaruhu ay ku dhufteen eeriyadeennu joogno waxa la yiraahdaa eeriyada waa guban waa dhul aad iyo aad u oodane oo aan wadooyin marin raashinkan maanta aanu halkan ku sidno qoyskiiba 3 shub iyo caagad saliida iyo kiilo shaah buu leeyahay cida soo bixisay waa golaha midowga imaamada waa masaajidada Mareykanka ku yaala ayaa soo bixiyay dadkii bixiyay in Ilaahay khayr ugu bedelo Ilaahay jannatul firdaws al-a'la uu guriyo uga dhiso oo hay'adaha ma yimaadaan oo isgaarsiinteedu waa xun tahay wax raashin oo idin soo gaadhaan miyay jiraan maya mucaawamada soo gaarsiiseen deegaankan aynu maanta joogno ee Kalyaqac wax boqolka qoys waliba wuxuu leeyahay 3 shub caagad saliida iyo kiilo shaah meeshaanu joognana waxa la yiraahdaa Gudmahadle waa meel dad xoog li degan yahay oo dadna degaan hore u ahaa dadna soo guurto xoolihii halka ay iskaga taageen ay yihiin xaaladoodu waa xaalad adag guddi gobol iman guddi abaareed oo qaraniman sidaa darteed waxaanu anagu keenay maanta 100 qoys oo qoyskiiba yahay 3 shub caagad saliida iyo kiilo shaah waxaan joogaa magaalada Dhurcilaan waxaanu halkan Suldaan Siciid raashin dhan 100 qoys Suldaanka noo keenay iyo cidii soo bixisay intaba Ilaahay baa mahad aad baan ugu mahad celinay waxaan nahay tuulada Gudmahadle haadina nooma iman dawladina nooma iman waanu u ducaynaynaa kuwan wax noo soo dhibeen raashinada noo soo diray Ilaahay ka jisaaisiyo oo ka keenay hay'adda marka la soo gaabiyo magaceedu yahay haro waanu ka gudoon Ilaahay inuu geliyo darajo iyo darajo aakhiro halkay ka soo saaray waxaanu si wanaagsan oo qiimo badan ugu qaybinaynaa dadka sida u sii kala mudan yihiin Ali Daar Maxamed Boos TV-ga Universal galbeedka gobolka Sanaag